dowladda Mareykanka ayaa ansixisay in dalka Qatar laga iibiyo hub gaadhaya ilaa $1 bilyan oo dollar waxaana arrintan la shaaciyay intii lagu guda jiray waqtiga nasashada ciyaarta koobka adduunka ee dhex martay xulalka Mareykanka iyo Iran taasoo ku soo dhamaatay in xulka Mareykanku uu 1 gool kaga badiyo xulka Iran wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa ku dhawaaqday inay saxiixday heshiis hub oo laga iibinayo dalka Qatar taasoo ay ku jiraan ilaa 10 ka mid ah hanaanka difaaca diyaaradaha aan duuliyo lahayn iyo hub kala duwan Qatar iyo dalalka kale ku yaala gacanka Carabta ayaa dandaansi kala kulma dalka Iran iyo xulufadeeda qoraal ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa lagu sheegay in heshiiska iibka hubku inuu taageerayo siyaasadda arrimaha dibadda iyo amniga qaranka Mareykanka iyadoo gacan ka geysanaya hagaajinta ammaanka dalalka saaxiibka la ah Mareykanka waxaana arrintan gacan ka geysanaysaa inay ahaadaan awood muhiim u ah xasilinta siyaasadeed iyo horumarinta dhaqaale ee bariga dhexe wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa sheegtay inay tallaabadani wanaajin doonto awoodda dalka Qatar uu kula tacaali karo khataraha haatan jira iyo kuwa mustaqbalkaba ciidamada cirka Ruushka iyo Shiinaha ayaa si wada jir u sameeyay dhoolatus military oo ka dhacay gobolka Aasiya Pacific waxa sidaasi maanta sheegtay wasaaradda difaaca Ruushka ciidamada cirka Ruushka iyo ciidamada cirka ee ciidamada xoreynta shacabka Shiinaha ayaa si wada jir roondada hawada ugu sameeyay gobolka Aasiya Pacific ayaa lagu yiri bayaan ay soo saartay wasaaraddu diyaaradaha Ruushka ee gantaalada xambaara ee Tu-95 iyo kuwa Shiinaha ee Jin H/6 ayaa dul maray badda Japan iyo badda bariga Shiinaha muddo 8 saac sida lagu sheegay bayaanka kadib markii laga gudoomiyay reer galbeedka tan iyo duulaankii Ukraine Vladimir Putin madaxweynaha dalka Ruushka ayaa raadinayay inuu xoojiyo xiriirka Aasiya gaar ahaan Shiinaha markii ugu horeysay taariikhda roondada hawada diyaaradaha Ruushka waxay soo caga dhigteen Jamhuuriyadda Shacabka Shiinaha halka diyaaradaha Shiinaha ay caga dhigteen dhulka federaalka Shiinaha ayay tiri wasaaraddu dhoolatusyadan ayaa la filayaa iyadoo si degdeg ah loo raaciyo sharciyada caalamiga kumana wajahna dalal saddexaad ayaa lagu siiyay bayaanka Moscow ayaa rajaynaysa inay hesho saaxiib wanaagsan Beijing maadaama ay labaduba leeyihiin hami ah inay gudoomiyaan kala dambeynta caalamka ee Mareykanku hogaaminayo Shiinaha ma cambaarayn hawlgallada military Ruushka uu ka wado Ukraine balse inkasta oo uu kala dhaxeeyo xiriir aan xadidnayn haddana Beijing way diiday inay hub siiso Moscow gobolkan ay ka dhaceen roondadu waa mid istiraatiiji u ah Mareykanka Shiinaha iyo Ruushka